Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Lowdaco halkan kaga soo gudbinayaa cashar yar oo gaaban laakiin muhiimadiisa leh. Inta garanaysaa way garanaysaa, laakiin intaan garanaynin ayaan rabaa inaan wax uga faa'iideeyo. Dabcan casharadan waxay noqon doonaa casharo imtixaano ah oo inoo socon doona haddii ilaah yiraahdo biidhnillaahi kariim. Okay, maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay wax ka beddelitaanka ama resizing ama weynaynta, haddaan idhaahdaba weynaynta screenka. Okay, waxaan ka bilaabaynaa right click ayaan ku leenahay screenka dushiisa. Right click markaan idhaahno waxaan leenahay properties markaan tagno waxaan tegaynaa haddii la yidhaahdo settings. Okay, settings markaan tagno halkan wayaan meeshaan wax ka bedelin haddii la yidhaahdo screen resolution. Okay, hadda wuxuu ku taagan yahay 800 ilaa 600 pixels. Alright, halkan ayaan waxaan yeelaynaa dabcan 1024 by 768 pixels. Okay, dan waxaan leenahay apply. Kadib waxaan leenahay haddaan hadda ka gaarsiinin waxaan haysanaa waa dareemaysaa waa second yar oo yes haddaan dheheen markii isbedelaysa marka yes ayaan leenahay. Dan waxaan leenahay okay ayaan ku leenahay. Okay markaan ku niraahno dabcan waxaa isbedelaya dabcan isbedel ayaad ka dareemaysaa markiiba markaan yes dhahnay screenkii wuu noo weynaaday. Ujeedka aan ka leenahay waxaa waaye markaad meelaad shaqo ku bilaabid waxaa la rabaa in si waasac ah aad ka dhigatid si aad u arki kartid screenka iyo howlaha aad ku qabanaysid. Marka waa casharkii qaybtii ugu horreysay oo aan ku sameyno dabcan qaybtan screen resolutionka. Marka insha allah casharadu waa siday noogu bilowdaan insha allah wayna noo socon doonaan. waa Lowdaco leh waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.